guddida joogtada ah golaha guurtida Somaliland ayaa kulan la qaatay wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Somaliland, wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland iyo mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socday laabaha dowladda. Kulankan ayaana lagu qorsheeyay sicir bararka baahsan ee ka jira dalka sidii wax looga qaban lahaa. Ugu horreyn halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha guddida joogtada ah golaha guurtida Somaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa in xukuumadda joogta ilaa intii ay qabatay ay dagaal kula jirtay waxaan la yiraahdaa sicir barar. runtii meel wanaagsan ayay marinaysaa, waliba hoos u dhaca doolarkii oo meel aad iyo aad u fiican maraya. isla markaa waxaa soo baxday in wixii aad ku iibsan jirtay $2 lagu leeyahay 20 kun keen. Kaasi ka hadlay gudoomiyaha banka dhexe oo ka sheekeeyay halka uu marayo isku sarifka lacagaha iyo habka ay ula tacaalayeen sicir bararka lacagta. Waxaanu labada waajib waxa weeyaan sida markii xilka aan la wareegay aan sheegayba waa inuu la dagaalamo sicir bararka waxaan yiraahdo oo xilka ugu horeeyo banka dhexe waajibaadkiisa ah. waajibka kale waxa weeyaan lacagta ama shilka Somaliland inuu qiimo u yeelo oo qiimihiisu deganaado isla markaana qiimo yeesho. xagga lacagta Somaliland shilling April 2018 halka shilling halka doolar wax lagu bedelayay 10,000 iyo 750. maanta wuxuu marayaa 8,000 iyo 400. 24% oo shillinkii Somaliland. ugu dambeyn waxaa halkaas hadallada iska daba maray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka wasaaradda ganacsiga iyagoo sheegay inay doorkooda ka qaadan doonaan sidii xal looga heli lahaa xaaladda sicir bararka. waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waxaan la shaqeynaa wasaaradaha ayaanu shaqaalo u nahay marka laga yimaado shaqadayada amniga wasaaradda imika waxa weeye gudoomiyaha banka hadda imika lahaa hawl baanu qabanayna. marka markuu dhahdo gudoomiyaha banku waxaan doonayaa wasaaradda dakhligu inay nala shaqayso oo dad ku gefay ama barnaamijkii cashuuraha ama barnaamijkii bankinka ama barnaamijkii ayaanu tallaabo ka qaadaynaa. anigu ciidan u baasiinaya iyo saraakiil waxaan leenahay gudoomiyaha banka fuliya policy-ga uu fuliyo suuqa horta nimanka jooga iyo xasaasiyada waddankeena jira aad baan u arkay. haddii iminka geesha ku sii dayno fariisha ka badanay waxaan diyaarinaynay 20 cisheena soo dhaafay ilaa 30 qof oo lagu talagalay inay suuqa galaan iyagoo information sita informationkii markuu halka ahaa sita oo maanta ku qiyaasay. waxaan markii hore diidanay inaan baxaw dhinaca suuqa galo in arintani fidiya. Maxamed Space Channel Hargeysa.